وزيرك وزارة الشغلة حبنا كلا قولها وزيرة وزير كحجينة يوزير دولياشة يقاسمياشة ضمان كسوق بقلاياشة شركة مهمة كه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسؤولين تكل الدول الدولة هيدا عالمية يكون محلي أهبة جناستها جامعتها دليلها قيمها بدن يجودها با تذكر كسوق يبقى لي شركة مرويني مدن يال مر لبعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسوق يبقى كالكافراد شروينها قرن شغابور كي شغدا شرف وين بيته جمهورية الصومال الآن قرنهان عمر اسمه باي نجا هايستا هيرك الشغلانتا أو سرية وجيد يدد كثير ضير شغية وشغوين كودو أنا مشاركة كسوقها أنا دبولين باهدودة نورلاد أما شغوين كقار كمدة oo aan isku halayn lahayn ama job security muwaadiniinteena ka yar soddon jir waxa lagu qiyaasaa bulshada inay ka yihiin 70% shaqalaanta dhalinyarada ay gaadhayso 57% waa tiro muujinaysa baaxadda dhibaatada taagan ee u baahan in xukuumad ahaan iyo shacbi ahaanba isu kaashano sida dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland shaqo abuur loogu samayn lahaa. Shaqo la'aantu waa dhibaato kordhinaysa saboolnimada waxay khatar ku tahay amniga guud iyo nabadgelyada dadka waxaanay halis gelinaysaa nolosha daayarta maadaama ay dhiirigelinayso tahriibta balwadaha iyo dhaqannada aan fiicnayn. وحقيقة jirta oo maanta shirkan laga sugayo oo ay tahay in shirkani xalkeeda maanta qayb ka noqdo sidaynu shaqo la'aanta u yareynayno ama shaqo u abuurayno waa waxyaabaha oo qabatay shirkan maanta in lagaga tashado. Xukuumaddu waxay qayb ka noqonaysaa xalna u raadinaysaa sababaha sii kordhiya tirada shaqo la'aanta. sababahaas markii la daraaseeyay waxa ka mid ah nidaamkeena waxbarasho oo ardayda uu soo saaraya aanay lahayn xirfadihii suuqa shaqada looga baahnaa vocational skills maadaama ay farakotiris yihiin dugsiyada farsamada ee dalka ka jira maanta. taasi waxay sababtay in shaqooyinka xirfadaha u baahan loo raadiyo shaqaale ajaanib ah sida aynu maanta ka warqabno. si arrintan xal loogu helo waxa xukuumaddu dhowaan ansixin doontaa siyaasadda waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ahmiyad weyn siinaysa in wasaaradda waxbarashada manhajka waxbarashada ay ku darto waxbarashada farsamada lana sameeyo dugsiyo sare oo farsamo maxadiyada sarsare ee farsamada gacanta iyo kulliyada farsamo si ay u daboolaan baahida shaqaalaha farsamo yaqaanada ah ee looga baahan yahay suuqa shaqada ee Soomaaliland. waxaan filaynaa insha Allah siyaasadda xukuumadana ku jirta in gobol kasta laga sameeyo dugsi farsamo gacmeed haddii la yiraahdo. waxaan furayaa wasaaradaha iyo hay'adaha kale ee qaranka oo leeyahay sidoo kalena ku boorinaya ganacsatada hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah in dhalinyarada jaamacadaha iyo kuwa dugsiyada farsamada gacanta la siiyo fursado tababaro shaqo oo muddo kula joogo si looga kabo khibradda u baahan yihiin. waxa maalin dhow hirgelintiisa bilaabmaysa oo dalkeen jamhuuriyadda Soomaaliland
وغير دوتا إن شاء الله وسيبه حدا نظامك هولقبك شغالها أما بنشن سيستم كاس وكردين دونا فرصتها شقاء أيضا يرد هلي دونتو حكومة جمهورية سوماليلاند waxay xoojin doontaa sanduuqa horumarinta dhalinyarada iyadoo la kaashanaysa bangiyada iyo hay'adaha maaliyadda ee dalka iyo kuwa caalamiga ah in la maalgeliyo hal-abuurka ganacsiga dhalinyarada lana fududeeyo deyn bixinta si ay dhalinyaradu u abuuraan shaqo haddii aan la yiraahdo ama u curiyaan walaalayaal horumar kama hadli karno haddii aynaan xal u helin sinaan la'aanta shaqada ee wiilasha iyo gabdhaha haweenka iyo ragga jamhuuriyadda Soomaaliland tiro ahaan way isku dhow yihiin sidaa daraaddeed waxay xukuumaddu hirgelin doontaa nidaam abuuraya oo sinaanta fursadaha shaqo ee hablaha iyo wiilasha taas la mid ah waxaan ka filaynaa ganacsatada iyo hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah waxaan xoojin doonaa tababarada farsamo gacanta ee haweenka iyo barnaamijyada maalgelinta si kor loogu qaado doorka ay ku leeyihiin horumarinta dhaqaalaha dalka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska waxaan farayaa inay dib u eegis ku sameeyaan nidaamka mushaar bixinta ee dalka oo dhan si loo hubiyo inaanay kala sarreyn mushaharka haweenka iyo ragga isku shaqada iyo isku aqoonta ah iyo in haweenku ay aamin ku yihiin goobaha shaqada oo aanay tacaddi iyo cadaadis u gaar ah la kulmin waxaanu aaminsanahay in haweenka oo fursadaha shaqada iyo maalgashiga si cadaalad ah loogu soo daraa ay kordhinayso xawaaraha iyo xaddiga horumarka dhaqaalaha qaranka waayo haweenku waa laf-dhabarka nolosheena hay'adaha dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay oo ganacsatadu ugu horeeyaan waxaa ku waajib ah inaan dadka shaqada soo doonanaya aan lagu kala haybsoocin deegaan gaar ah ama sida jirkoodu yahay gaar ahaan marka shaqada la qorayo oo ay fursadaha shaqadana u sinaadaan muwaadiniintu dhammaantood arrinta fiiro gaar ah ayay xukuumaddu siin doontaa haddii la yiraahdo dhibaatooyinka dhaqaale xumada iyo shaqo la'aanta ka dhashay waxaa ka mid ah in carruurtu ay waxbarashada ka loox tuuraan ama ka tagaan waxbarashada iyo in carruur badani ay yaraan shaqo ku bilowdo si ay qoysaskooda u caawiyaan waxaanu xoojin doonaa xukuumad ahaan ilaalinta xuquuqda carruurta iyo ka hortagga shaqaalaysiintooda si ay waxbarashada ugu sii nagaadaan shirkan waxaa laga filayaa inay ka soo baxaan qorshe hawleedyo cadcad oo wax lagaga qabanayo shaqo la'aanta iyo in daneeyayaasha kala duwan ee isugu yimi ay mar kale muujiyaan sida ay uga go'an tahay in xal wadajir ah loo raadiyo mashkiladda shaqo la'aanta ugu dambayn wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoyska oo hogaaminayso wasiirku Marwo Milgo iyo cid kasta oo gacan ka siisay qabashada shirkan waanu mahadnaqayaa shirku rasmi inoogu furan yahay waana mahadsantihiin dhammaantiin